ururka haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta deeq isugu jirta raashin iyo xoolo nool guddoonsiiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar uga socday Xiro Gordon. Maama Batuula Sheekh Axmed Aana gudoomiyaha haweenka qaranka ayaa sheegtay in deeqdan tusaale ay u tahay garab istaagida ay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka. mudana taliye waxaan maanta u nimiday anagoo ka wakiila haweenka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisa inaan ku soo gaarsiino taageerada buuxda oo ay la barbar taagan yihiin haweenka Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u taagan difaaca iyo ilaalinta qarannimada difaaca xuduudaha oo cadawga casharraba aan u dhigay taageerada aan u hayno inaan ku soo gaarsiino waxa hordhaca oo hadda aan soo gudbinay oo haweenka Soomaaliyeed noo soo wakiisheen geel ari cunto kala nuuc cabitaan kala nuuc oo loogu talagalay sahayda ciidanka jikooyin waaweyn ayaa laga furay dalka gudihiisa maadaama dalkeenu uu dagaal galay si ay uga xoroobaan cadawga gudaha iyo kan dibadda jikooyinkaas oo lagu diyaarin doono sahayda ciidanka oo lagu yaqaano oo haweenka Soomaaliyeed caanka ku yihiin kuwaas oo isugu jira cuntooyin qallalan oo ku fiican qofka marka uu joogo goobta dagaalka ama uu ku jiro xarbi uu dalkiisa ugu jiro inuu ku noolaado oo aysan energy-du ka lumin haweenka Soomaaliyeed hadii aan nahay waxaan ilaalinaynaa xurriyadda dalka waxaan ilaalinaynaa calanka qarannimada waxaan diyaar u nahay inaan tagno furimaha oo aan la dagaalano cadawga si cadawga ummadda Soomaaliyeed uga baaba'o dalka hurdada naloo diiday iyo hoyaadka naloo diiday. dhanka kale taliyaha ciidanka lugta Cabdixakiin Maxamed Dirir oo gudoomay deeqdan ayaa u mahad celiyay ururka haweenka Soomaaliyeed maadaama ay hiil iyo hoo la garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ilaah baa mahad iska leh aad waxaan ugu faraxsanahay maanta oo ay gudoomiyihii ururka haweenka Soomaaliyeed Maama Batuula ay maanta iyo haweenkii Soomaaliyeed halkan taagan yihiin iyagoo taageero aan la soo koobi karin la garab taagan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad bay waxay noogu tahay moral gelin ciidanka iyo saraakiishaba waanu ku faraxsanahay sida habsamida leh oo soo dhaweynta leh oo aad maanta noogu timaadeen idinkoo dhiiri gelinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taageerada aad noo muujiseenna runtii waa taageero aan idinka filaynay mar walbana waan ognahay haweenka Soomaaliyeed inay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay taageero buuxda u muujiyaan waxaan leenahay waxyaalaha alaabta aan noo keenteen iyo xoolaha iyo agabka aan noo keenteen waa ku mahadsantihiin waana idinka gudoonnay mar walbana waxaan ognahay inaad garabkayga tihiin waana farxad gelinaysaan waana soo dhaweyseen ma sha Allah annaguna waxaan rajaynaynaa sida aan noo soo dhaweysay inaan dalka u hanano oo aan cadawga uga saarno garab istaagiinna waa muhiim waxaan filayaa mar haddii aanu aragnay haweenkii Soomaaliyeed oo ciidanka garab taagan inuu al-shabaab waddanka ku jiri doono waayo waa hooyadii Soomaaliyeed. Maxamed Amiin Cabdirasaaq Aadam Bulsha TV magaalada Muqdisho. ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika Asia qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kubaad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u weecweecin dhiishka kubaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin.